Wasaarada Horumarinta Caafimaadka ee Somaliland waxay soo bandhigtay 400 oo haamaha Kaydiya oxygen-ka taasi oo loo qaybin doono dhammaan gobolada Somaliland isla markaasina lagula tacaali doono dadka u baahan oxygen-ka. Madashaasi ay ku soo bandhigtay Wasaarada Horumarinta Caafimaadka ee Somaliland waxaa ka soo qayb galay Wasiirka Wasaarada Horumarinta Caafimaadka Umar Abdullaahi Badeeye, xogayaha guddiga COVID-19 iyo qaar ka mid ah dhakhaatiirta waaweyn ee Somaliland. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasna hadalka iska daba qaatay Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka ee Somaliland iyo mid ka mid ah dhakhaatiirta waaweyn ee Somaliland. maanta waxaa runtii farxad weyn aniga iyo wasiirka iyo wasaaradda iyo guddida ka hortagga cudurka coronavirus-ka dhammaantayo farxad weyn oo ah in halkan aanu ku gudoomayno intii ugu badnayd cylinderiska oxygen-ta ee loo isticmaalo bukaanku markuu cudur ku dhaco neeftuna naqaskuna ku yaraado. in badan baynu maqlaynay oxygen laan baa jirta, dhibaata jirta oxygen-ta xaggeeda Somaliland. ilaahay mahadi weeye maanta marka laga bilaabo waa arkaysaan halkan waxa yaala 400 oo silinder oo cusub oo ay wasaaraddu la soo degtay. waxa kaloo soo socda intaa in leeg baa soo socota oo bisha gudaheeda insha Allah inoo iman doonta. intaasiba markay inoo yimaadaan waxaanu filaynaa xarun caafimaad oo dalka ku taala Somaliland gudaheeda ku taala inaanay waayi doonin kayd oxygen oo dambe. guddida qaran oo arinta ka hawlgashay oo 300 oo xabo kamid ah soo iibisay 90 kamid ah waxa soo iibiyay dhakhaatiirta reer Somaliland ku dhaqan Mareykanka. 10 kamid ahna waxa iyo Amud Foundation oo ku jira 10 kamid ahna waxa soo iibiyay hantilaha warshada Salaama oo run ahaantii aad ugu mahadnaqayno inuu hawl fududeynta iyo soo iibinta iyo keenida uu gacan la xal ka qaatay. inta marka laga yimaado waxaad ogtihiin dadaalka joogtada ee ku jirno aynu qaran ahaan isku tashanay ummadaha kale wixii ama dawladahooda dhaqaalaha haysta ama wadamo kale ama hay'adaha caalamiga wax kala qabanayeen inagu dhammaan wax walba qabsanay isku taga iyo isku ururka iyo inaan gudaheena isbaaranay ayaynu ku gaarnay. waxaan aaminsanahay 400 haamood waxay dabooli doonaan baahida gobolada ay u qabaan oxygen inay helaan. oxygen-tuna sida caadiga ah ma aha wax COVID-19 kaliya uun soo baxay in la isticmaalo dawaa waa wax laga maarmaan ah in laga helo xarun kasta caafimaad awal lagu shaqeyn jiray laakiin baahida intii hore ayaa ka badatay. Idris Maxamed Caynaan Goobjoog Hargeysa.